gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucid Mujaahid Cali Gurey ayaa waxa uu ka hadlay arrin muran dhalisay oo ah warqad uu soo bandhigay taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya General Abdullaahi Gaafo oo ku sheegay inay ka soo gaadhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde taasi oo sidoo hadalka u dhigay uu taliyuhu sheegay inay ahayd codsi xafiis baasaboorada Soomaaliya laga qaadanayo gudaha Soomaaliland iyadoo dhankiisana wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Waran Cadde uu iska leexiyay arrinkaasi isagoo ku tilmaamay mid been abuura Mujaahid Cali Gurey oo la hadlay telefishinka caalamiga ah Cable TV ayaa waxa uu sheegay inay hore xafiis uga fureen Soomaaliland kaasoo baasaboorada Soomaaliya laga qaadanayay balse hadda gabi ahaanba albaabada loo laabay iyadoo intaas uu ku daray inay tahay arrin muhiim ah si looga wada hadli lahaa in loo fududeeyo cidii u baahata baasaboorka Soomaaliya inay ku heli karaan gudaha Soomaaliland anigu waxaan haystay maadaama aanu baasaboorkii Soomaaliland la aqoonsanay dad badan oo reer Soomaaliland oo dibadaha ka shaqeeyana ay baasaboorkan isticmaalaan dadka xanuunsanaya dhakhtar u baahan in la qaadana intay halkan $200 ka bixiyaan ay baasaboorka loogu keeno halkii la dooraba laga soo sameeyay processkaasi in la baabi'iyo anigu waan ka soo horjeesaday waayo dadkii maxay sameeyeen baahidu qofka baahani isaga halku gudub tagaya qofka hargeysa 200 kaga helayay baabuur buu qaato wuxuu tagay Garowe baasaboorka qiimihiisa 200 ee kontrabaan ka hargeysa kaga helayay waxa uu ku tagay $800 hodheeladii seexanay gaawa transportkii uu soo fuulayay waqtigii ay ka qaadanaysay baasaboorkii isagoo ku qasban ileen kama maarme ay horta doonta markaan waxba kama qabin in line ka hoose iska shaqeeyo